qisadan ayaa isbuucan gudihiisa ka dhacday magaalo lagu magacaabo Manaus kana tirsan dalkaasi Brazil. Runtii waa qiso ani ahaan isoo jiidatay aana filayo idinkana inay sidaas oo kale idin soo jiidan doonto. Marka waxaan isdhahay saaxiibadaada ha ku jimcaystaan maanta, fikirkiinana noogu reeba commentiska. Haddaba aan u guda galno sheekadeena. Naagtani waxay dhashay mataano leh laba aabbo oo kala duwan kadib markii ay u galmoodeen laba nin hal maalin. Gabar 19 jir ah ayaa sheegtay inay mataano u laba aabba oo kala duwan kadib markii ay u galmoodeen labada ninba hal maalin. Hooyadan yar ayaa yaabtay markii ay ogaatay natiijada baaritaanka aabanimada oo ay go'aansatay in ay qaado si ay u xaqiijiso qofka uu yahay aabbaha dhalaankeeda. Markii ay ogaatay in caruurteedu ay ka soo jeedaan laba nin oo kala duwan, waxay tidhi ma u maleynayn in tani ay dhici karto. Dhakhtarkeeda oo lagu magacaabo Tulio Jorge Franco ayaa sheegay in kiiskeeda uu aad dhif u yahay, wuxuuna ku tilmaamay xaalad 1 milyankiiba laga helo halkiis oo kan oo kale ah. Haweeneydan oo doonaysa in magaceeda la qariyo balse ka soo jeeda magaalada Manaus ee dalka Brazil ayaa isku maalin la galmootay laba nin oo kala duwan, waxayna labadoodaba u qaaday uur sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi. Waxaa la sheegay in ay tiri waan la yaabay natiijada, maanan ogeyn in tani ay dhici karto, aad ayay isugu eg yihiin. Dhakhtarkeeda ayaa sheegay inay jiraan ku dhawaad 20 kiis oo kale oo adduunka oo dhan ah oo ku saabsan superfecundation heteroparental sida loogu yeero scientific ahaan. Superfecundation waa bacriminta laba ugxan ama in ka badan oo isku wareeg ah oo ay shahwadu ka soo baxdo fal galmo kala duwan, taasoo horseedi karta ilmo mataano ah oo ka yimid laba aabbe oo kala duwan. Waa dhacdo aad dhif u ah in la arko haweeney dhasha mataano leh aabbayaal biology oo kala duwan. Dhakhtarka hooyada yar ayaa la sheegay in uu yiri waxaa suurtagal ah in ay dhacdo marka laba ukun oo isku hooyo ah ay bacrimiyeen rag kala duwan. Dhalaanku waxay wadaagaan maadada hidisooca hooyada, laakiin waxay ku koraan mandheer kala duwan. Waxa uu intaa ku daray waa dhif iyo naadir, waa 1 milyankiiba. Marna uma maleynayn in aan nolosheeda ku arki doono kiiskan oo kale ah. Haweeneydan ayaa la sheegay in ay tiri caruurteeda aad ayay isugu eg yihiin, balse 8 bilood kadib waxaa bilowday shaki ku aadan midka uu yahay aabbaha. Haddaba markay 8 bilood jireen ayay DNA ka qaaday ninkii ay u maleynaysay inuu aabbo u yahay. Si kastaba ha ahaatee, tijaabada DNA-da ninka waxay noqotay positive ama ay islahaadeen mid ka mid ah labadeeda caruur, taasoo micnaheedu uu yahay in ninkan uu dhalay hal cunug. Mar labaad ayay tijaabada ku celisay, laakiin natiijadu waxay markii labaadna noqotay sidii hore oo kale. Markaas kadib ayay soo xasuusatay in ay maalintaas nin kale la yeelatay galmo, sidaasna loogu yeeray ninkii kale si isna tijaabo looga qaado, halkaasoo natiijada ka soo baxday tijaabada noqotay positive oo uu noqday aabbaha cunuga kale. Caruurta ayaa hadda jira 16 bilood, laakiin kiiska ayaa la soo bandhigay isbuucan. Hooyada ayaa tiri mid ka mid ah labada nin ayuu xafiiska diiwaangelinta diiwaangeliyay daryeelana labada caruur. Hooyadu waxay kaloo tiri in ninka la diiwaangeliyay in uu aabbo u yahay labada cunug uu si fiican u daryeelo kana taageero daryeelkooda. Saaxiibayaal, sheekadeena maanta intaas ayay nooga eg tahay. Intaan mar kale ku kulmeyno hadduu Ilaah yiraahdo, waxaan idinkaaga tagayaa nabadgelyo iyo naxariista Eebbe dushiina inay ahaato.